السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صومالي ذا بالكسو عرورة فيسبوك كسو عرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين دادك صاحبة ولا لها فانسكا دمان انت مقال كيغا اي مقال كيغا تقانو وان إذن وضا السلامي waxaan rabaa inaan ka hadlo arin yar oo xasaasiyo maxaa la isha shalay ilaa habeen hore ilaa maanta qabsatay Facebook oo wax xasaas u sii weyn aan ahayn oo muhiim yar inaan ka hadla rabaa soo waa ina soo wada gashaan moodo joogtaan mana i maqashaan 300 ku jirta hadda soo wadan galay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maxaa la isha sanad guurada arooskayga oo aan sameystay xalay habeenkii ka horeeyay maxaa la ii sheeg oo hal sano ka soo wareegtay xaflad baa sameysanay anigii xaaskayga maxaa la ii sheeg xafladii bay dadka maxaa la ii sheeg inta ugu badan dadka ay hadal hayeen waxaan rabaa inaan arintaas wax yar oo maxaa la ii sheeg muhiim inaan idinka dhaho dadka i daawanayo dhan waxay tahay arintaas yar oo muhiimka oo rabaa inaan idinka dhaho maxaa la ii sheeg horta xafladda waxa aan anaga dhiganaynay waxay ahayn aroos waxay ahayn sanad guuro maxaa la ii sheeg wax aroosna wax ma dhaamin waxay sanad guuradeeda koowaad arooskayga kale ahayd oo anaga markaa is aroosna wax xaflad iyo maxaa la aroos iyo waxas maanan dhigan oo wax markaas oo muhiimna lama sii noqon laakiin waxa muhiim nala ahayd inaan xaflad dhigano oo maxaa la ii sheeg sanad guuradii baan dhiganay sanad guuradii maxaa la isha waqti fiican baan ku wada qaadanay waqti maxaa la isha qurux badan baan ku wada qaadanay waqti ma sha Allah oo laga sheekay baan ku wada qaadanay sida darteed waxa dhacday sawir in laga soo qaaday sanad guurada anaga aan dhiganayno waxaan sameeynay maxaa la isha toortadii baan afka isku galinay waqtiga toortada markii la gaaro waqtiyada ugu dambeysay ahayd toortada markaan afka isku galinay maxaa la isha waxa dhacday inaan is shumino oo hal mar aan is dhunkano taasi marka macno weyn ma ahan ma keenayso macno gooniya oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah ee isqabo ee awlaad leh ee maxaa la sanad guuradii arooskooda iyo farxadoodii iyo maxaa la ii sheeg meeshan u jooga inay waqti qurux badan wada qaataan weligood baa inta reer magaala iyo inta Soomaaliya iyo dadka dhaqankeenan maxaa la ii sheeg yaani aroosyada la yaqaano ay wada og yihiin in maxaa la dhahay ii sheeg ninka iyo naagta isqabo markay maxaa la ii sheeg toortada jaraan inay afka iska shumiyaan ina afka iska shumino wax macno gooniya oo maanta iyo ceeb gooniya iyo maxaa la ii sheeg wax madaxa la qabsado oo a'uudu billahi minash shaytaan rajiim la dhaho oo maanta laga wada yaabo oo ah oo gooniya ma jirto maxaa la ii sheeg aniga naagtan shumiyay ama gabadha aan shumiyay ma aha gabar islaameed ma aha naag aan wada iska soo raacnay ma aha naag maxaa la ii sheeg oo islaameed oo maxaa la ii sheeg oo friends aan ahay waa xaaskayga xalaashi ahayd haddaan afka ka shumiyo intaan toorto jirno anagoo farxad ku jirno maxaa la ii sheeg haddaan afka iska shumino wax macno gooniya oo maxaa la ii sheeg oo ma keenayso ceeb gooniya ma keenayso sidaa darteed maxaa la waxa rabaa dhalinyarada qaladka aamintay faaniska ah ee walaalaha ah ee dadka Soomaalida oo dhanba maxaa la ishay Facebook wada inaan u sheego in arintaasi ayada ah ay ahayd wax markaasi inaga markaan isku imaanay ee toortada aan jirnaa hal mar afka iska shumina weligeedii Allahdaan la arki jiray dad isqabo oo dadka ama aday aroosiin ama haddii sanad guur dhiganay ama haddii farxad ka dambeysay inay dadku maxaa la ishay markay toortada jiraan waqtiga toortadooda la gaar inay hal mar afka iska shumiyaan si caadi ah maxaa la ishay xafladooda ugu soo dhamaato marka waxa la sameeyay waxa laga soo duubay videogaas hadda waxa ka leeyahay videogaas wax maxaa la ii sheeg waqti saas u sii dheer ma aanan ma usan ahayn so wuxuu ahaa videoga markaan toortay saas u jirnay hal mar baan dhac
سين واسي كلا تجنا سيداس با وحال لقى دقي فيديو جوا أنت لصاق بتاع وحال لقى فرج ستوري أو محل إيشك أو إن وحال لقى دقي واحد طبعا دقيقة أيهن أو إسكو دوانيان هالمرة أفك إسكو هاي إسلوقيان حدنا محل إيشك سي كلا تجنا واحد لوق مال الله تمشي مقولين محل إيشك وحسن وأنشح درو واحد إنك أنشح درك دقي سان لوق مال أشياء سان واحد صرتم وحماشي على وحماشي أول كريبة ما إهن شو مسيروها سيداس تاسنا فرحة أنا كنت واحد أو محل إيشك maanta oo saas u sii weyn nin yahow xaaskaaga maxaa u shumisay nin kacbe iyo madiino gubay maxaa la ishay nin madiino gubay aniga iga dhigan waxa ah nin maxaa la ishay waqtigaas maxaa la farxadeed hal mar xaaskiisa shumiyay wax weyn taas ma keenayso marka halka dhib ee ugu weyn ee meesha ka taagan baan rabaa horta inaan hal mar idin sheego waxa jira oday maxaa la ishay waalan oo jin ku dhacay gabadha amasiyo محل هرت أول شيء نقول عاجر أو وارن أو إلهي عذاب كاس إلهي هرت عذاب كوابجينا يا أو محل إيش قاتم هذا الجبي محل إيش أسقي يوم حكوا صاروا إنه أو محل عيالك أولا الكرهري هبين أولا ترصدوا محل إيش أولا عيتم مركا وأوجد الله داري على السوق ما هالهراء وحن سميه رنتان كشيء أنتوا يمدون رنتان كشيء والله أو بالله أنا بين إذا شيء وحو جاري هير لأن يرد صاحب هذا عهن أو يسلسل عنه إنه متبع معنا أنتوا صاوع ويرهدوا هاي السلام عليكم وعليكم السلام إن هبل متى ها وأنا كواد ظاهر كأسق هاي محا وبهنا دولار وحرب أنا أرين إيش شو محيط أرين تكوتش لاي أنا سميسو محل إيش نك ضيح اللي رأسه صاحب متين ها سو best friends متين ها waxaan rabaa inaan u dan sheegato si been inaan maxaa la ii sheeg ugu dan sheegato oo tiraado maxaa lahaa waxaan rabaa inaan dayax kula noolaado oo gurigaaga joogo oo anaana waxaan ku siinaa bil kasto waxaan ku siinaa ii sheeg bilkaaga iyo maxaa la ii waxa ku noolaan lahayd aan ku siinaya waxaan rabaa inaan gurigiisa inta tagtid oo maxaa la waqtiga nasiinada ama sida caadiga guriga filimka la daawanayo ama halka nigiska uu wato ama waxaas uu wato inaan sawir iiga soo qaadi oo sawirkaas iiga soo dirtay ninkaas dagaal oo igula jiraa saan u yeelay waxaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg dadka aan ku ceebay inaan saas yeel horta adeer ilaahay ku naxariisto ilaahay qaatumadaada ku soo celi ilaahay ku maxaa la ii sheeg wixii dhibka ku haysto dhib baa ku haysta ilaahay ha ka dul qaado wax kale oo ka hadlay ma jiraan arinta muhiimada ahayd oo maxaa la ii sheeg dhalinyarada qalad ka fahanteen walaalayaal gabadh asxaaskayga ahayd hal mar baan issuminay waxaan sameeynay waqtiga toortada la jeey farxadeena ahayd Soomahan muhiimada aan fiidiyoga soo galay oo fiidiyo soo duubay intaas ay ahayd arin waxaan rabay inaan idinka jaahil bixi maadaama aan wax badan maxaa la isha isku wareer social media ay wadwadeen waa mahadsantii idinkana ilaahay ha idin sharfo ilaahay ha idin karaameeyo khayr Allah idin siiyo waana mahadsantiin